gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer Xuseen Awdiriye Maxamed ayaa maanta wareysi khaas ah u siiyay shabakada caalamiga ee Ictiraaf News waxa uu kaga warbixiyay howlaha shaqada maxkamadda rafcaanka ee gobolka Togdheer isagoo gudoomiyuhu ka dhawaajiyay maxkamadda rafcaanka ee gobolka ay hoos yimaadaan maxkamadaha deegaanka kamid ah gobolka Togdheer marka la yiraahdo garsoorka waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo u dhib leh gobolkan garsoorku waxa weeyaan ilaa iyo 7 maxkamadood baa ka dhisan 4 degmooyinka dibadda ah ama magaalooyinka dibadda ah iyo 3 xarunta runtii garsoorayaal doora iyo shaqaale doora ayaa jooga arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan garsoorka in la gaarsiiyo dhulka fogfog waayo dhulka fogfog dhibaatooyin baa ka jira xagga dadka danyarta ah runtii aad iyo aad u saamaysa waayo qofku hadduu isagoo jooga balidhiig oo kale ama deegaanka balidhiig oo kale isagoo jooga hadduu u baahdo inuu dacwad ka furto maxkamad maxkamadda ugu dhow waa balidhiig laakiin haddaan loo fududayn oo aan gobolku tegin ama racfaanku tegin balidhiig maxkamadda balidhiig dhibaato waxay soo gaaraysaa dadka deegaankaas waayo wax laga yaabaa inaanay maragyadii keeni karin inaanay hayn karin inaanay masruufi karin in aanay muxuu ahaayay hawshoodii danyar ahaan u bogan karin geesta kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay maxkamad guurguurta ay u fududeeyeen bulshada ku dhaqan deegaanada fogfog ee gobolkani garsoorku wuxuu sameeyay barnaamij dadka loogu dhaweynayo garsoorka kaas oo la yiraahdo hawsha maxkamadda guurta runtii waa hawl aad iyo aad ugu muhiima dadka danyarta waxyaabo badan ayay muxuu ahaay wax ka tartay waxay wax ka tartay inay dadkii dhibaatadii ay meesha maxkamadaha fogfog kala kulmi jireen ay ka maarmaan ama ay muxuu ahaa laga xaliyo waxay keentay dambiyadii sida fudud u dhici jiray inaanay ka dhicin oo dadku markay arkaan maxkamad gurigoodii agtimid in muxuu ahaay uu fududaado dambi falkii gabagabadina waxa uu gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer Xuseen Awdiriye Maxamed uu baaq ku saleysan barbar istaaga howlaha shaqada maxkamadda u diray bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada waxaan ugu baaqayaa inay garsoorkooda gacan siiyaan isla markaana cadaaladda iyo garsoorka ku kalsoonaadaan oo kalsooni ku qabaan taasaan ugu baaqayaa waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee Ictiraaf News Bro